أو رجل عال أو قل مدك أو صومالي نمدي أو إسلام نمدي بقتي ربنا قاعد ولا ما ربنا يدرعان علي محمد كينان wuxuu jiraa 45 sano laakiin muuqaalkiisa waxaad moodaa canug yar oo dhalaan ah waayo waxa uu ku siqaa oo ku gurguurtaa salka dambe waa curyaana lagu dayacay degmada Guraceel dad waxa ugu dhow sanatar dhagay asna waxa uu ciila ka qabaa nolosha uu nool yahay Cali oo mar baabuur jiray ee loo sheegay wuxuu ku jawaabay wali ma nool yahay oo ma dhiman miya subhanallah walaalkayga Soomaaliyeed waxaan la dartiisa kaaga codsanaya in miskiinkan curyaanka ah aad u sheergarayso muuqaalka si walaalo naxariis badan u soo caawiyaan waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo wiilkaas curyaanka hayda ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsaa warkanaga iyo muuqaalkanaga inay sheergaraydo Cali wuxuu ku dayacan yahay degmada Guraceel in ka badan 25 sano xalay oo u dambeysay ma uusan helin wax uu afka gelsho ma hadlo mana socdo mana sheegan karo meesha xanuune sida ay noo sheegtay hooyadii Faaduma Ciise Geelle aabihii asaga dhalay waxa uu ku nacay sida Allah u dooray Cali oo ah curyaanka uu noqday hooyga Cali ku nool yahay ma aha mid uu seexan karo qof bini aadan ah oo waxa ku dhalay tixsi markaada gudaha u gasho buushka Cali degan yahay waxa indhahaaga ka imaanaya ilin maadaama darxumo xoogan haysato walaal Cali kuma dhalan nimadan wuxuu ahay canug yar oo aad u firfircoon oo shaqo badan u qaban jiray qoyskiisa 10 sano isagoo jira ayay haleeshay musiibadan rabbaaniga gaari gacan ayaa lagu geyn jiray goob u samaysan sida xerada ariga halkaas ayaana hoy u ahaan jirtay hooyada dhashay Cali ayaa noo sheegtay inay ooyaan oo iska cabaadaan marka ay gaajadu ka tambadato sidaas ayaana waxa ugu soo baxo dadka dariska oo raashin ay soo reebeen u keeno wadda Guraceel waxay ku nacanjiista iyo meesha oo yaal wixii dhalna waxay ku nacanjiista aniga ma qof kale wada lama arko anna waxaan awoodo iyo waxaan haysto midna ma laha 60 sano jira isaguna 40 sano jira waxa isku manaal xilliyada badi waa mar iska qadna oo waxaan karsan aanan haysan oo waxaan ku dhar la xirta xataa islaamka ilaahay calaalanisiyo waxaan haysan ma leh alxuma iska ka qabaysan iska ooyaa waxaan loo ooyaa alxuma meeshaas qofka ii yaalo waxaan awoodan aysan jirin isbitaalna ana geesan karin waxa taa nolol maalmeedkana aan u hayn gacantaydan saxarada uga qaadaa kaadii xaarka ana ka qaada ana ka dhaqa halkan maanta u gali waa tuuraasan hadana meelaha islaamka calal uga soo gooba buushkan ku nool yahay saxda waraawo islaamnimadii waraawo walaaltinimadii waraawo muslimnimadii meeshaas aan ku baqbaqtayna galmudug aawe Soomaalinimadii aawe ninkaas curyaanka iyo aniga waa nala nacay waxna raba mal ninkaas curyaanka ahna la igu nacay reer Guraceel waana naceen wax islaamahana raba oo ummadda Guraceel joogto waa la wada nacay qof walba say xoogay inuu keenayay markii dambana wada naceen ummadda waa reer Guraceel waa galmudug waa Soomaalinimadii waa islaamnimadii baqbaqti rabna gaajan u dhamaan rabna iyo dharraan waxaan u wahay hadda calalkaas u gashan yahay ciidan ka soo bari wiilkayga iyo anigu waa ku baqti rabna Guraceel أو إسلام نمدي أو صومالي نمدي ضد مسلمين متشوقان مية إسلام هون نحمد شوقان مية واحد دير إسلام متشوقان مية قلبي هذا وحن أكريان واي وسوي أوي أنه ولا أوي وسلا أوي نواجا إنه يجبر يسوي أوي وح الله كريان دبك لا أذن ولا واي مية وح مية يصير وحن عنا يصير ولي وحن عنا يصير بدر ناكر باستنا ناكر بريس كر أو إشكالي كأمس إسكساحة ساحة نملا إسكقارنا أويه ما صبحنا ماله باهي أنا ولا أوي وسلا أوي الناس كل أوي ولا نبري نقاش أول ود أوي هذيك أنا باهي ما كوي هاي ويا سقطن هاي ذاك هاي باهي إلهي وين إسكاج أجنال هاي إلهي مركز نسيان دب خوش ونا مركز كلنا حوا ما عرقنا أو يصير فافيان ومد الصومالي وحن قاعد صدق يدبس ديت شو عاوية نقرب استياجان وقف كاس أو نكاس أو أركان ده تال وذا يعني هدي وحكة لأترى أيام. لمبر كي قوات الضبدي. سديتين كو. عشان يتضبط. نحن يلا. مركلكوا علي. قوات الضبدي. سديتين كو. عشان يتضبط. نحن يلا. tani waa qadar waana midna lagu imtixaana haddaan nahay addoomaha Ilaahay walaal waxaan ka codsanayaa inaad ku caawiso walaalka dhiban wixii aad u awoodo sadaqo yaraan ma lahan ugu yaraana ku sadaqayso inaad muuqaalka share dhahdo adigoo mahadsan